munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen bulshada reer Galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayay ujeedadeedu ahayd taageeridda iyo garab istaagga musharax madaxweyne Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Madashan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin magac ku dhexleh bulshada sida abwaanada, madaxda ururada haweenka, daladaha dhalinyarada iyo marti kale oo munaasabadan ka soo qayb galay. Dhammaanba mas'uuliyiinta kala duwanaa ee munaasabadan hadallada ka jeediyay ayaa Qoorqoor ku tilmaamay in uu yahay shakhsi awood u leh ka gudbidda ismaandhaafka sababta u ahaa khilaafaadka ragaadiyay maamulka Galmudug, iyadoo laga tusaale qaadanayo doorkiisii siyaasadeed ee aan ku dhumin isbedelada dowladihii dalka soo maray oo intooda badan uu qayb ka ahaa. Gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Dhuusamareeb Axmed Xasan Cali, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Galgaduud Hodan Aaran, gudoomiye ku-xigeenka ururada haweenka degmooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel iyo xubno kale ayaa goobtan hadallo kala duwan ka jeediyay. Caawa inta halkan fadhido dhalinyarada ah ma jirto cid la soo qasbo halkan la keenay, dhammaantood waxay u yimaadeen inay ka qayb qaataan xafladda taageerada musharax madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Waxaan leenahay hambaliyo dhalinyarada ka soo qayb gasha taageerada musharaxa inta aan ka aragnay ninka kaliya ee dhalinyarada markii uu la fariisay aan ka aragnay taageerada uu hayo haddii uu xilka ku guuleysana ballanqaadyo kala duwan u sameeyay. Waxaan rajaynaynaa marka in dhalinyaradu sidaas u ogaato. caawa waxaan u taaganahay Axmed Kaariye Qoorqoor. dhalinyarada Galmudug waxay ku jirtaa tahriib, waxay ku jirtaa tahriibeen qaar waa qaar qaylayo, qaar xabadulaysay, qaar hadda qolmada ku jira. laakiin haddaan Axmed Kaariye Qoorqoor guulaysto kuma jirayno, waxaan oraynaa horumar. waxaan bisi laga bilaabaynin baraka male, anigu waan ducaynayaaye Allah aqbalo. duca ballaar weyn dhulkaan baaxadiisa leeg, axmedow taliya baashi allow tirka ku adkee. madaxweynaha mustaqbalka ee Galmudug inuu Qoorqoor yahay waa loo yahay, ma hal mar kaliya uun dhaariyaano noo sheegaan oo noo soo saaraan. waa bismillaah noo soomaa. intaas waxa aan u leenahay waxa waaye daraasaad aan ku sameynay samata bixinta Galmudug. markaan dib u eegno wixii aan soo marnay iyo waxa jira, markaan fiirino waxaan qaymeynay in uu yahay samata bixiyaha Galmudug iyo isku dubridaha Galmudug. waan taageersanahay, waana soo dhaweynaynaa. insha Allah waxaan rajaynaynaa sida asagoo musharaxa ay dadku u saacideen u garab istaageen madaxweyne markuu noqdana inaan u garab istaagno. annaga ka dhalinyaro ahaan dad waxaana energy ah ama awood iyo maskaxdii muruqii haya, maalkiina wuxuu ku jira waa qolyaha noo qaban doona hoggaanka. annagu waxaan awood u leenahay ama baawarkeenu yahay inaan dhar noo dooro ninkaas anaga dan noogu jirta, noo dooro ninkaas aan samata bixin karna. 75% waa dhalinyaro. haddaad dhaga adeegtaan na dhagaysan weydaan dhan kale aad marisaan dhalinyaro iyo waayeel dhadig iyo laboodba dhagaxaanu wada guran, dhabahaanu iswada tubi, dhafoorkaanu idin jabin, dhiiggiinnu wuu quban. yaan dhibaata dhixi leh dowladeenna gobolka noogu dhiiba Qoorqoor. iyo taageeradeenu waxaan leenahay taageerada buuxda iyo gacmo buuxa. maanta waa maalin weyne, maanta madaxweynaheena, maanta madaxweyne naare, maanta waa maalin weyne, maanta madaxweynaheena, maanta madaxweynaha raage, maanta. saad ogtihiin 4 dowladood oo dalka soo martay oo ay u dambaydo dowladda hadda oo xilka ka hayay oo la soo shaqeeyay si wanaagsan oo deegaankiisana anfacaysa, dowladdana anfacaysa, qarnimada Soomaaliyeedna anfacaysa ayuu la soo shaqeeyay. khilaafna lagama sheegan. waxaan aaminsanahay inuu naga lumay waqti badan oo nooga lumay Galmudug, ayna ku timid khilaaf u dhaxeeya dowladdii dhexe iyo dadkii madaxda ka noqonayay Galmudug, taas oo runtiina cuuriyaamisay. waxaan aaminsanahay cuuriyaamiska inaan uga baxayno madaxweyne la shaqay kara ama aysan isku dhacayn dowladda dhexe. Qoorqoor ayaa u tartamaya xilka madaxweyne ee maamulka Galmudug
waxaana uu xoogga saarayay muddadii uu ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb la kulmidda qaybaha bulshada iyo dhageysiga talooyinkooda taasi oo uu ku saleynayo doorkiisa siyaasadeed. Cabdullaahi Warsamo Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.